madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta furay shirweynaha culimada Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayaan culimada Soomaaliyeed oo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa. madaxweynaha ayaa sheegay in culimada ay ka shaqeeyaan mideynta ummadda Soomaaliyeed sidoo kale inay ka soo saaraan shirkan qodobo muhiim ah. shirkan oo socon doona muddo 4 maalmood ah ayaa culimada uga hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin dhisidda golaha sare ee culimada Soomaaliyeed iyo doorka culimada ee dagaalka ka dhanka al-shabaab. shirkan ayaa ku soo aadaya xili ay maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo maamulka Galmudug ay diideen inay ka soo qayb galaan iyaga oo dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inaysan kala tashan. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.